الله محله إلهي هل كان سوكا كان عاوة الناس تقنيي المناسبة عن قرح بدن وشرفت له تاريخي أن يدبال دقنه سنة بوردي كنت الاستغالات كسو ورقتي maalintii gobolada koonfureed ay qaateen xorriyadii ay ka qaateen dawladda Talyaaniga iyo midowga gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed ay ku midoobeen hal dawlad hal qaran hal calan waa maalintii beesha caalamku ay qireen Soomaaliya inay tahay qaran calan leh dawlad leh waa maalintii dhibkii aan soo marnay halgankii dheeraa ay dhacday dhimasho badan dadkii xorriyadoonka ahaa dhaawac fara badan dhaqaalo badan uu ku lumay waa maalintii madaxeedii ee ummadda Soomaaliyeed ay gurteen iyo guud ahaan dadkii halgamayaasha ahaa Allahu naxariisto kulli intii soo halgantay oo naftooda soo hurtay oo dhaqaalo ku bixisay waliba khaasatan dumarka oo dahabkooda u iibiyay iyo qof kasta oo dib u soo maray ay ku jiraan kuwa badan oo loo xirxiray yaa halgankan dheeraa oo qaatay 17 sano iyo ka badan maxay ahayd visionkoodu aragtidooda maxay ahayd halgamayaashaas aawa laga hadlay oo naftooda u soo huray hadday ahaayeen kuwii waqooyi gobolada waqooyi iyo hadday ahaayeen halgamayaashii halyeeyadii gobolada koonfureed waxay ka midaysnaayeen dhowr arrimood waxay ka midaysnaayeen gumaysidiid waxay ka midaysnaayeen gunnimadiid waxay ka midaysnaayeen quursidiid in qofka Soomaaliyeed uu ogolaado in laga sareeyo in dawladihii Yurub ay ku heshiiyey inay Afrika yimaadaan bacdama ay midaysnaayeen iyagu ay ku midoobeen inay Afrika yimaadaan oo u qaybiyaan qabiilo iyo dhaqamo iyo diimo ay u qaybiyaan oo ay muujiyaan inay ka sareeyaan ummadaha Afrikaanka ay u yimaadeen waxaa diiday halyeeyadeennii waxaa diiday halgamayaasheenii ayaa diiday waxaana mideeyey kuwii gobolada waqooyi ee wadaniyiinta ahaa iyo kuwii gobolada koonfureed ee wadaniyiinta ahaa waxaa mideeyey inay diideen gunnimo inay yidhaahdeen Soomaali gun ma aha waa gob Soomaali qof kasta meel kasta ha ka yimaado igama sarreeyo waa la simanahay waxaan u dabaaldegaynaa midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo awoodda midnimada ee leedahay oo halgamayaashaas iyo halyeeyadaasi ay aasaas uga dhigeen intaan sheegay oo ahaa inay diideen gunnimo inay qoorsi diideen aasaas waxay uga dhigeen inay mid yihiin inay midoobaan inay u midoobaan cadowgaas ku soo duulay oo damcay inuu dhaqankooda bedelo inuu luqadooda bedelo inuu diintooda bedelo waxay u heleen wax ka duwan waxa isticmaalka uu ku shaqaysto oo ah qaybi oo xukun oo ku qaybi qabiil iyo qabyaalad oo ku qaybi diin oo dhaqan ku qaybi waxay u heleen midnimo awoodda midnimada marka awoodda midnimadu wax sahlan ma aha midnimadu waa awood urursan weeye waa xoog midnimadu waa difaac aan dadka loo soo gudbi karin aan lagu dhibaateyn karin ummaddu hadday midaysan tahay inta badan ummadaha burbura iyo dalalka burbura ma aha waxa burburiyey in lagu soo duulay waa dhacdaa in lagu soo duulo oo si qaawan lisu xoog sheegto waa dhacdaa laakiin inta badan wadamada iyo ummadaha adduunka waxaa lagu burburiyaa gudaheeda laga burburiyaa waxaa loo helaa dad ka soo horjeeda ama u shaqeeya markii ay ka waayeen waxay rabeen oo ahayd qaybtooda in la siiyo
وتنازلين لكن تنازل كاسوح دلي تضوى سنة كبعدي إن الله نحرستين محمد إبراهيم عيال ونغضب برايم مينستركي مثلا الدولة الوقوعية وحانا كان تنازل كي وتنازل وأوران كرين هذي أي دون أيام أنا وحبان سكو درسنا لكن ما يلين maxaa yeelay waxay ahayd dad wadaniyiin ah oo runtii ka horeeya waqtigooda oo ujeedadooda ugu weyneed ay ahayd inay Soomaali xor noqoto Soomaali ay la tartanto caalamka intaasaa waxay keentay marka sharafkii maasha Allah waa mahadsantahay taasaa waxay keentay marka Soomaali inay hesho sharaf iyo xurmo iyo ixtiraam iyo karaamo inay hesho oo muddadii aan midnimada haynay oo 30 sano ahayd aan ugu horeeyay wadamada Afrikaanka ah oo aan ku caawinay wadamo badan oo gumaysi ku jiray inay xoroobaan maxaa yeelay waxaan fahamnay awoodda ay leedahay midnimada in awoodda la ururiyo awoodda ay leedahay midnimada oo ah in la kala dambeeyo oo nidaam la samaysto awoodda ay leedahay midnimada in dan guud laga shaqeeyo iyo dan wadaag la noqdo awoodda ay leedahay in tala wadaag la noqdo oo la isku tanaasulo awoodda ay leedahay inay nabad keento marka inay dhaqaalaha kor u qaado taasaa waxay keentay Soomaaliya inay muddadii ay mid ka ahayd oo midnimada ay haysatay inay Soomaaliya noqoto wadamada Afrika ugu horeeyay kana tilmaaman caalamka intaas oo aan sheegay waxay ku soo bilashabatay kalsoonida shacabka Soomaaliyeed iyo qabkii ummadda Soomaaliyeed oo ilaa hadda wali ummadda Soomaaliyeed qabkoodii uu sidii u nool yahay waa sax muddo waa burburnay dib badan waa nagu dhacay waa la kala ordhoobay ummaddii waxaa ku dhacay qax iyo dhibaatooyin far badan laakiin sidaasay tahay waa arkaysaan ummadda Soomaaliyeed wali damiirkoodii Soomaalinimo iyo wadaniyadoodii wali way nooshahay laakiin waxa noo harsan oo kaliya inaan gaarno oo aan fahmno 59 sano la soo dhaafay waa aragnay midnimo waxaan ku gaarnay iyo waa aragnay kala qaybsanaan iyo qabiil iyo qabyaalad iyo burbur waa aragnay waxa ay noo dhintay dhibaatada noo dhintay su'aasha taalo waxay tahay 59 sano soo socda sidee Soomaali u ekaanaysaa anigu waxaan qabaa rajo fiican waxaan aaminsanahay Soomaali inay midoobi doonto insha Allah waqti ahaato waxaan gacmaha u fureynaa walaalaheena ee Somaliland in ay ku daydaan aabayaashood ee dhaliyay gobonimada aabayaashood midnimada keenay aabayaashood oo sharafka Soomaaliya ay soo martay iyo magacii wanaagsanaa inay ku daydaan maxaa yeelay waxa xaqiiqo ah ummaddu hadday kala qaybsan tahay oo ay noqoto qayb naga maqan Soomaalida waqooyi ama Somaliland qayb naga maqan ay noqoto waa wax ka maqan qofkuna hal dhinac kama socon karo wuxuu ku dhamaan sariir iyaguna sariir bay ku dhamaan annaguna sariir yaa ku dhamaanaynaa adduunkana waa ka hareennaa marka inaan fiirno maslaxadda caruurteena iyo mustaqbalkooda inaan fiirno maslaxadda ummadeenna iyo caalamka sida uu u dhaqaaqay iyo caalamka sida uu u shaqeeyo iyo wadan walba oo adduunka jira inay nagula dhaqmaan iyagoo midaysan oo aan kala qaybsanayn marka in aan noqono sidii awoowayaasheen ama aabbayaasheen ay yeeleen oo dalkaani ay xorriyad u keeneen ay u soo dhinteen ay dhiiggooda u soo daadiyeen oo intii dhib ahaa ay u soo mareen oo markii ugu dambaysana aan noqonnay waddamadii Afrika ugu horreeyey oo xorriyadda qaatay in aan noqonno kuwii taariikhda ku gala oo 59 sano kadib maxaan ku idhaahdaa ummadda Soomaaliyeed oo jiilkaas nool ay nagu faanaan oo yidhaahdaan aabbayaasheen xorriyad bay keeneen dalkii waa naga burburay 59 sano ka hor yaa aabbayaasheen dhulkay ka qaadeen midnimadii soo celiyeen dadnimadeen iyo sharafkeen iyo karaamadeen dib u soo celiyeen anigu diyaar waxaan u ahay inaan taariikhda ku galo
in aan noqonno kulligeen dadka halkan fadhiya mas-uuliyiinta ah oo aan kula dardaaranno dadka waalayno reer waqooyiga ah ama Somaliland inaan ka tagno taariikh caruurteena uga tagno mustaqbal wanaagsan caalamka aan la jaan qaadno annagoo mid ah maxaa yeelay annagoo mid ah oo midaysan yaan la tartami karnaa caalamka dhinac walbaba hadday noqoto dhaqaale